kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub waxaan kaga hadli doonaa ciyaaraha qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa kamid ah Alex Chamberlain oo go'aan ka gaaray kulaabashada Arsenal kadib xiisaha Gunners oo qabto Leo Messi oo taariikh ku sameeyay kubadda cagta South America muddada uu Rafael Varane ka maqnaan doono goromada oo la ogaaday 10 goolahaye ugu fiican Premier League ilaa haatan oo la shaaciyay iyo Ander Christensen oo ogolaaday in heshiis cusub u saxiixo kooxda Chelsea hadda janaalka arka sports ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaara muuqaalada soo socda muuqaalkan shirgareeya si ay u soo beenaan saaxiibada ciyaaraha xiiseesa waad maasantiin soo dhawaada mar kale xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Liverpool Alex Chamberlain ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu ku laabto Arsenal si uu u badbaadiyo xirfadiisa ciyaareed sida ay sheegayaan wararku go'aanka Alex Chamberlain ayaa imaanaya kadib xiisii Arsenal u muujisay xidiga kaas hore ugu soo garoonka Emirates sida laga soo xigtay Daily Mirror Alex Chamberlain ayaa diyaar u ah inuu ku biiro kooxda Arsenal haddii isbedel uu waayo xalkiisa kooxda Liverpool waqtigeeda soo socdo xidiga Chamberlain ayaa diyaar u ah inuu u dagaalamo booskiisa Liverpool laakiin haddii uuna xalkiisu isbedelin wuxuu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay Chamberlain inuu dib ugu soo celiyo Emirates si uu u xoojiyo kooxdiisa dambe ee xilli ciyaareedka xidiga kooxda PSG Leo Messi ayaa isku qoray taariikhda kubadda cagta South America kadib markii gool ku hogaamiyay xulkiisa kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka xulka Argentina ayaa garaacay xulka Uruguay kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka qaaradda South America xilli Leo Messi uu dhaliyay gool kamid goolasha xulka qarankiisa Argentina kadib goolkaas Leo Messi ayaa isku qoray taariikhda kubadda cagta South America kadib markii uu dhaliyay goolka koowaad xulka qarankiisa kaasoo dhaliyay daqiiqadii 37 qaybtii hore Leo Messi ayaa noqday xidigii ugu horeeyay reer South America ee dhaliyay 8 gool kulmada caalamiga kadib markii gool 3 gool eber ku hogaamiyay xulkiisa Rafael Varane ayaa walwal geliyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United kadib markii garoonka ka baxay asigoo dhaawac intii lagu guda jiray finaalka ee wada ciyaareen xulalka Faransa iyo Spain ee xulka Faransiiska oo ku guuleystay tartanka UEFA Nations League daafaca Faransa ayaa ka baxay ciyaarta taasoo ka naxisay taageerayaasha Manchester United kuwaasoo haatan isweydiinaya muddada uu garoomada ka maqnaan doono kadib dhaawaca waxaa la ogaaday muddada xidiga Varane oo ka maqnaan doono garoomada iyo kulmada uu sheegi doono kadib markii ay bilowdeen kulmada fasaxa xulalka wararka ayaa sheegaya inuu Rafael Varane garoomada ka maqnaan karo muddo 1 ilaa 2 toddobaad ah si uu ugu soo kabsado dhaawac soo gaaray waajibaadka xulka qarankiisa Faransa haddii la xoojiyo inuu Varane 2 toddobaad ka maqnaado garoomada waxa macna tahay inuu sheegi doono labada kulan Liverpool iyo Tottenham kadib fasaxa xulalka kadib markii la ciyaaray 7 kulan horyaalka Premier League waxa si xoogsanaya xilciyaareedka ayadoo xidigo ismuujinayaan xilciyaareedkan waa midkii uu adkaay sanadihii ugu dambeeyay ayadoo kaliya 2 dhibcood u dhaxeeyaan 6 kooxood ugu sareeya Premier League waxa qaab ciyaar cajiib ah kooxaha Premier League door muhiim ah ka qaatay goolahayaasha kooxaha kala duwan kuwaas oo ku jiraan kuwa soo bandhigay qaab ciyaar aad u wanaagsan kadib markii la gaaray fasaxii labaad xulalka xilciyaareedkan waxa dib loo eegay qaab ciyaareedka goolahayaasha ilaa haatan xilciyaareedka horyaalka Premier League markii la sameeyay qiimeyn fiican waxa la shaaciyay 10 goolahaye ilaa haatan ugu fiican horyaalka Premier League xilciyaareedkan goolaha ugu horeeyo ayaa ah goolaha kooxda Chelsea Mendy goolaha labaad wuxuu ka tirsan yahay kooxda Liverpool Alisson Becker goolaha saddexaad ayaa ah Roberto Sanchez wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Brighton David De Gea ayaa ku jiro kaalinta afraad wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Manchester United Ederson Moraes ayaa ku jiro kaalinta shanaad wuxuuna u ciyaaraa kooxda Man City David Raya oo goolaha ka tirsan kooxda Brentford ayaa ku jiro kaalinta toddobaad Aaron Ramsdale oo goolaha ka tirsan kooxda Arsenal ayaa ku jiro kaalinta sideedaad Kasper Schmeichel ayaa kaalinta sagaalaad ku jiro Leicester ayaa u ciyaaraa goolaha tobnaad ayaa ah Ilan Masillier wuxuu u ciyaaraa kooxda Leeds United Anders Christensen ayaa lagu soo waramayaa inuu ogolaaday inuu qandaraas cusub waqti dheer u saxiixo kooxda Chelsea 25 jirkan ayaa loo arkaa inuu yahay nin muhiim u ah Stamford Bridge iyo markii uu yimid Thomas Tuchel bilowgii 2021 si kastaba ahaatee inkastoo uu saftay 27 kulan tartamada oo dhan muddada
muddadaas Christensen muusan kordhin qandaraaskiisa haatan dhamaadkii xilaareedkan sida laga soo xogtay suxufiga Talyaani Fabio Romano ayaa taas mar dhow ayay isbedeli doontaa iyadoo labada dhinac ay ku wadashii doonaan shuruudo cusub. Romano ayaa intaas ku dariya in heshiiska si rasmi lagu dhawaaqayo iyadoo Christensen uu ku fogaaday heshiiskii labada kooxood ee kale. Saaxiibada qiimaha badan muuqaalkan shargareeya la wadaaga taageerayaasha ama ciyaaraha dadka inta badan daawadaan si ay ugu soo biiraan YouTube-ka channelka Arka Sports. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.